Asalaamu calaykum. Sideed tihiin dhalinyaro? Maanta waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo filim cabsi ah, waxaana lagu magacaabaa Alive. Preview. John wuxuu ku sugnaa guriga isagoo ciyaaraya League of Legends. Saaxiibkiis ayaa si lama filaan ah u sheegay in wax dhacayaan bannaanka. Headphone-ka ayuu iska siibay oo qolka fadhiga ayuu soo galay. Isla markaas taleefankiisa waxa uu helay digniin musiibo ah. Isla markii kadib qaylo dheer ayaa laga maqlay bannaanka. John horey ayuu u socday isagoo maqlaya hadal yaab leh. Waxa uu arkay dad bannaanka jooga oo si waali ah u kala ordaya. Waxay u muuqatay inay la kulmeen wax laga naxo. Xaafadda oo dhammi waxay isu beddeshay wado daqiiqado gudahood. Gaariga dabdamiska oo ordaya meesha soo galay. Isla markii John uu murugaysan ayuu si lama filaan ah u arkay naag u socota gabadheeda oo wadata midida cunnada, laakiin inanteedii oo aad mooday inay waalan tahay ayaa hooyadeed ku dhacday. John ayaa goobtan aad uga xumaaday. Isla markaas qaylo naxdin leh ayaa ka timid albaabka bannaankiisa. Si taxaddar leh ayuu albaabkii ugu soo dhowaaday oo ka eegay daloolka, laakiin cidna ma uu arag, qofna ma joogin. Markaas oo wax yar ayuu albaabka ka furay. Nin baana xoog ku soo galay. Wuxuu ahaa dariskiisa xiga. Waxa uu u sheegay in ninkii ay wada deganaayeen uu waashay oo uu doonayay inuu halkan kaga badbaado. John ayaa u sheegay inuu si degdeg ah uga baxo, laakiin ninku wuxuu ku adkaystay inuu isticmaalo musqusha marka hore. John si cagajida ayuu u aqbalay. Isla markaas warbixin ka socotay TV-ga waxay sheegtay in dhammaan waddanku ku dhacay fayraska zombie uuna ku gudbayo qaniinyo. John si degdeg ayuu u qabsaday mindi si uu isu difaaco. Ninkii wuu soo baxay. John wuxuu ugu hanjabay inuu si degdeg ah uga baxo. Ninkii ayaa u sheegay inuu fiican yahay, laakiin waxaa la tusayay inay ka soo baxeen calaamadihii cudurka kadibna isu beddelay zombie. Isagoo u soo jeestay dhinaca John wuxuu isku geeyay xooggiisa oo dhan, wuxuuna ku guulaystay inuu iska saaro zombiga. Talaajada ayuuna u adeegsaday si uu u xidho albaabka, isagoo isu diyaarinaya in uu waco qoyskiisa. Waxa uu fariin ka helay waalidkii, waxayna u sheegeen in aysan hadda iman karin guriga. Waxayna u sheegeen inuu sii noolaado si kasta ay tahay. Hadda wuxuu isku halayn karaa oo keliya waa naftiisa. John ma garanin inta uu sii joogayo meeshan. Waxa uu diyaariyey cuntadii yarayd ee uu haystay. Subaxii xigtay wuxuu isticmaalay si uu baaro xaaladda dibadda. Waxa uuna ogaaday in xaafadda oo dhammi ay gaba ahaanba buux dhaafiyeen. Dabaq kasta waxa uu lahaa zombies. Habeen John wuxuu ka warhelay rasaas. Wuxuu u gurgurtay si uu eego. Waxaa soo baxday in haweeney booliis ah ay soo ataageen zombies. Wuxuu u daawaday si aan waxba tarayn markii zombieska ay ka adkaadeen iyada. Isla markii wuxuu maqlay jabaq albaabka gadaashiisa ah kaga dhacday. John isagoo cabsi la gariiraya ayuu si tartiib ah u soo dhowaaday isagoo haysta usha basboolka. Zombie ayaa ku guulaystay inuu gurigiisa soo galo. Si degdeg ah ayuu u orday isagoo isticmaalaya jirkiisa si uu u xidho qaboojiyaha, laakiin xitaa xooggiisa oo dhan waxay ahayd midna waxba tarayn. John waxa uu fahmay hal sir oo uga fakan karo. Si xawli ayuu balakoonka ugu soo orday. Waxa uu fuulay birta. Isla markiina zombieska ku soo booday. Wuxuu uga leexday. Zombieskuna wuxuu joogsan karay weelkaas ayuuna dhulka ugu dhacay. Inkasta oo John si daqiiqa uga badbaaday khatarta, laakiin cuntadii yarayd oo talaajada ugu jidhay way ka burburtay. Si uu isaga ilaaliyo inuu ismoojiyo, waxa uu daaqadaha ka xidhay caqabado macmal ah. Ma uu garanayn inta uu sii hayn karo, laakiin hadda John waxay ahayd inuu la kulmo zombieska oo keliya, laakiin sidoo kale cunto yaraan iyo 15 maalmood oo dhib badan kadib. John wuxuu bilaabay inuu yeesho dhalanteed. Waxa uu arkay waalidkii oo guriga ku soo laabanaya oo nabad qaba, laakiin markuu ka soo baxay wuu adkaysan waayay. Dhulka ayuu ku dhacay isagoo xanuun la ooyay. Si kastaba ha ahaatee, fariin cad ayaa u keentay rajo. Waxay ka timid waalidkiisa, laakiin anteenada guriga ayaa daciif ahayd. John wuxuu ku qasbanaaday inuu halis galo oo taleefankiisa dibadda u dheereeyo. Ugu dambeyntii taleefankii wuxuu lahaa anteeno daciif ah, laakiin waxay ahayd fariintii u dambeysay ee waalidkii. Wax xun baa ku dhacay. John qalbigiisu hadda wuxuu u qabow yahay sida dhimashada. Waxa uu lumiyey dhammaan dhiirigelintii uu kusii wadi lahaa noloshiisa. Ugu dambeyntii John wuxuu sameeyey doorashada ah inuu soo afjiro noloshiisa. Si kastaba ha ahaatee, isla markiiba uu kursiga ka laaday. Leydhka laserka cas ayaa si lama filaan u iftiimay wejigiisa. Waxaa yaab leh inuu jiro qof kale oo weli nool. John si qoys ayuu u dagaalamay isagoo la halgamay oo ka xoroobay xarigii. Markii uu u soo dhowaaday, wuxuu ogaaday inay tahay gabadh qurux badan. Isdhaafsi kooban kadib gabadhu waxay u sheegtay inay sii wadi karaan sheekadooda subaxda xigta 7 saac.
laakiin markuu John soo toosay wuxuu artay inay hore u ahayd 5 saac. Yobin way daawanaysay maalintaas oo dhan. Waxay dareentay inuu gaajaysan yahay oo ay doonaysay inuu cunto u keento. Waxay isticmaashay kubadda kolayga si ay xarig ugu soo xidhay si adag u soo tuurtay, laakiin xooggeeda oo kooban awgeed waxay ku degtay saqafka roobka ee hoose. Nasiib wanaag John wuxuu lahaa daroon. Waxa uu si xirfadaysan u maamulay daroonta si uu ugu guulaysto inuu xariga u geeyo gabadha. kadib markii uu dejiyay marinka xariga. Yobin wuxuu John siiyay qayb ka mid ah raashinkeeda uu cunay, laakiin sida uu John wax u cunayay wuxuu si lama filaan ah u dareemay inay wax khaldan yihiin. Debdemiskii isu bedelay zombiga ayaa haystay xarigii dhulka lagu tuuray daqiiqada ka hor. Zombigan ayaa weli xajistay caadooyinkiisii xilligii uu caafimaadka qabay, laga soo bilaabay markii uu noolaa. Jeedidii uu xoogga u soo jeeday ayay Yobin ku dhacday, taasoo keentay inay suuxdo. Zombina ayaa xariga jeeday oo bilaabay inuu u gurgurto dhanka guriga. John wuxuu rabay inuu soo farageliyo oo joojiyo zombiska, laakiin masaafada ay ahayd mid aad u fog, taasoo ka dhigtay dadaalkiisa mid aan waxtar lahayn. Tani waxay ahayd markii daroonta ay mar kale soo gashay ciyaar. John wuxuu si joogto ah u carqaladeeyay zombiska, isagoo isku dayaya inuu farageliyo horumarka zombiskan sababta uu guriga u fuulay. Nasiib darro, zombisku wuxuu burburiyay daroontii. Markii zombisku uu ku sigtay inuu fuulo balakoonka waqti xasaasi ah, Yobin ayaa miirsatay. Waxay ku dhuftay zombiga hal joog oo garaacday. Markuu arkay Yobin oo ka baxsanaysa khatarta, John qalbigiisa u lulsan ayaa ugu dambeyntii nafisay. Si kastaba ha ahaatee, cuntadii uu Yobin siisay ayaa hoos u dhacday. John wuxuu qaatay go'aankii ah inuu khatarta aado oo u baxo si uu sahayb u aruuriyo, haddii kale aakhirka uu dhiman lahaa. Wuu isqalabeeyey oo si taxaddar leh albaabka u furtay. John wuxuu helay meydka deriskiisa, wuxuuna si guul ah u helay furayaashiisa. Markii uu soo galay aqalka deriskiisa, wuxuu arkay meyd sariirta dul jiifa. Kaba ayuu ku tuuray, laakiin wax jawaab ah lagama helin. Isagoo ku kalsoon inay nabad tahay, wuxuu bilaabay inuu guriga ka baadho sahay. Markii uu furay qaboojiyaha, ur xun ayaa u soo uray. Nasiib wanaag wuxuu helay weel subag lows ah iyo sanduuq buskud ah oo aan la furin. John wuxuu kale oo u ogaaday in deriskiisu ahaa nin buuraley ah, marka waa in ay jiraan qalab waxtar leh oo ku wareegsan guriga ku jira. Kadib markii uu ku dhex xamanayay guriga, laakiin markaas ayuu zombis si lama filaan gadaashiisa uga soo muuqday oo ku soo booday. John uu isku riixay zombiskii ayuu si quus ah uga soo cararay guriga. Way uraysaa markaad nolosha ku bixisid, dabcan waa inuu la wadaagaa wanaagga. Yobin oo si la soo hadashay, sidoo kale labadoodu waxay ugu dambeyntii awoodeen inay wada hadlaan midba midka kale. Muddo dheer ay wada hadlayeen kadib markii aanay muddo dheer hadlin, laakiin farxaddu mar walba waxay muddo gaaban. Zombiskii oo aamusnaa ayaa si lama filaan ah u xanaaqay sababo jira awgeed. Labadooduba dhulka ayay joogeen, kumana dhiirin inay dhawaaq sameeyaan, laakiin Yobin ayaa si lama filaan ah jabaq u samaysay. Markii uu zombisku ay tallaabo u xidheen, John ayaa si degdeg ah u weydiistay gabadha in nambarkeeda qolka uu isticmaalo khibradiisa guri ahaan si uu ugu xidho taleefanka qolka deriska leh ee Yobin. Waxay si guul ah u soo jiiteen dareenka zombiska jihadaas. Waqtigaa kadib ma aysan doonin inay fadhiistaan oo ay sugaan inta zombisku dhimanayaan. Iyadoo la eegayo, Yobin waxay aragtay inaysan jirin zombis dabaqa 8aad ee ka sarreeya John. Marka waxay go'aansadeen inay halkaas tagaan kadib markii labadoodu ay heleen. Yobin oo dirgahooday khibradna u lahayd fuulista dhagaxa ayaa hoggaanka qabatay. Dhaqdhaqaaq kaliya oo degdeg ah ayay samaysay boodbood wareeg ah oo isla markiiba dhulka ku degtay. Meesha dhan waxaa ka buuxsamay zombis. Waxay ka furtay xariggii waxayna u carartay halkii ay u socotay, iyadoo meelaynteeda jilicsan iyo xirfadaheeda mindida fiiqan. Waxay ka fogaatay hal zombis kadib, laakiin waxaa jiray qaar badan oo iyaga ka mid ah. Intii ay baxsanayeen, Yobin waxay si lama filaan ah u garaacday zombi. dabadeed waxay aragtay qori hortiisa yaal. Marka ay u kacday inay soo qaado, zombis kale ayaa ku soo booday iyadoo waqtigii muhiimka ahaa. John ayaa yimid isla waqtigiisa uu caawiyay labadoodu. Waxay dhex mareen dadkii badnaa ee zombiska ee dhanka dhismaha. Waxay isticmaaleen albaabka muraayadda si ay u xanibaan zombiska dibadda. Kadibna waxay galeen wiishka iyagoo si toos ah u socda dabaqa 8aad. waxayna u maleeyeen inay halkaas ku nabadgeli doonaan, laakiin markii Yobin ay madaxeeda rogtay, waxay aragtay koox badan oo zombis ah oo si lama filaan u soo baxaya. John wuxuu si ba'an ula dagaalamay zombiskii, halka Yobin uu qof qol u soo jiiday. dabadeed bambaqiiq ayaa la tuuray, waxaana u soo gurmaday nin wejiga soo duubtay. Si kastaba ha ahaatee, Yobin kuma kalsoonayn ninka hortiisa jooga. Ninku wuxuu siiyey cunto iyo biyo, laakiin inkastoo ay gaajoonayeen, haddana labadoodu kuma dhiirin inay wax cunaan. Markii ugu horreysay ninku cunay ayay dabciyeen ilaaladoodii oo ay ku dhufteen. Ninkii ayaa u xaqiijiyay inay cunto badan jirto, wayna sii haysan karaan ilaa ay kooxda samataximta ka imaanayso. Markii ay maqleen kooxda samataximta, labadooduba waxay rumaysan waayeen markii hore,
laakiin markii uu ninkan maqlay warbaahin ah oo xaqiijinaya joogitaanka koox samata bixin ah aad bay ugu farxeen. waxay ma ay ogeen in musiibo ay ku dhowdahay inay dhacdo. markii Yobin uu ogaaday inay wax ka khaldan yihiin waxay ahayd goor dambe. Joe ay sidoo kale ku xiran tahay naag zombies. ciidafka kale ee xariga waxaa haystay ninku wuxuu soo baxday in zombie ay tahay xaaskiisa, welina uu aad u jeclaa. inkastoo ay isu bedeshay zombie kama uu labalabayn inuu dadka nool isticmaalo quud ahaan. ninkii ayaa si tartiib ah u dabciyay xarigii zombieskiina waxa uu soo booday dhanka Yobin. qolka waxaa ka buuxsamay qaylo isla markaas John ayaa miyirsaday. waxa uu ninkii ugu hanjabay qorigiisa albaabka ka furo, laakiin markuu si fudud ayuu ugu wada sii daayay. John wuxuu si quus ah isku dayay inuu qabsado, laakiin inkastoo uu isticmaalay dhammaan xooggiisa waxa uu joojin waayay. qaylo isdaba joog ah kadib dhawaaqii qolka ayaa si lama filaan ah u aamusay. ninkii ayaa si taxaddar leh albaabka u furay iyo waxaa wax ka qabta xaaskiisa zombie. hadda lamaanuhu weligood way wada joogi karaan. gabdhaha fikirka leh ayaa weligood isku haya in si lama filaan dhawaqa rasaasta ayaa soo jiidatay zombieska xaafadda oo waxayna ku qulquleen dhismaha joogeen. labadoodu waxay dareemeen rajo la'aan halkii ay ka jexi lahaayeen zombies. waxay doorbidi lahaayeen inay arrimaha gacmahooda dhammaystaan. isla markii uu John uu ku sigtay in xabadda bilaabay ayaa dhawaqa diyaarada helikobtar maqlay. daaqadaha ayay ka eegeen oo runtii waxay arkeen koox samata bixina. waxay ahayd fursadda keliya ay ku badbaadaan waxay ahayd inay u socdaan saqafka sare. John wuxuu soo tuuray 2 sanduuq oo sigaar ah. Yobin wuxuu riixay gaari baabuur si uu wada baneeyo. waxay ka faa'iideysteen fursad ay uga cararaan xagga saqafka sare iyadoo zombiesyadu ay gadaal ka dhow yihiin. Yobin waxay si lama filaan ah u qabtay laakiin John wuxuu ka daboolay baaskiilkiisa. Yobin waxay ka faa'iideysatay fursad ay ku jabiso John oo xor ah oo ku amray in ay wado saqafka sare oo ay caawin raadsato. laakiin markii ay timid way heli weyday helikobtar. John wuxuu la dagaalamay zombies soo socday waxayna ku biirtay saqafka sare. zombieski waxay jabiyeen safkii ugu dambeeyay ee difaac. labadooduna gees bay galeen. rasaastii way ka dhammaatay. zombiskiina way xidheen. dhawaqa matoorka ayaa si lama filaan gadaashooda ku maqleen. diyaarad helikobtar ayaa kasoo hormuuqatay taasoo sii daysay rasaas xoog badan oo si degdeg ah u baabi'iyey tiro badan oo zombies ah. labadooda ayaa lasoo badbaadiyey waxaana la saaray diyaaradda helikobtarka iyagoo ka baxsaday goobta nacamsida leh. markii ay ka badbaadeen dhibaatadii dhacday ayay is eegeen oo dhoola cadeeyeen. nasiib wanaag way sii adkaysteen. geesaha kala duwan ee magaaladana waxaa ku sugnaa dad badan oo iyaga la mid ah oo samata bixin sugayay ilaa iyo inta ay ku dadaalayaan inay sii noolaan.